baaritaankaani ay sameeyeen ciidamada militariga iyo booliska dalkani Koonfur Afrika ayaa wuxuu maanta ka dhacay xaafadda ay Soomaalidu ka degan tahay magaalada Johannesburg ee Mever. Ciidamada ayaa la sheegay in ay baaritaanka u gol lahaayeen hub la sheegay in ay haystaan Soomaalidu degan xaafadda iyo kuwa sharci darro ku jooga dalka Koonfur Afrika. Waxa intii howlgalka wadeen ay ka qabteen dad tiradoodu gaaraysa ilaa 10 qofood waasi oo sharci darro lagu qabtay. Waxa uu markii uu baaritaanka soo gabagabay mikrofoonka TV-ga caalamiga ee Kalsan la dhaxmaray qaar ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Mever sida ay u arkaan baaritaankani. ما ترى ولا الوحدات كمجران صوته أي واجب كذي معناها كذي لكن وحياله معناها قلبنا يسمونه البجر تبدأ بهذا مش أنا مقيد هذا في دي ويل البشري معناها يويدين شرعي ويل الشقار باك صوتري قف كم كي قبطان قف شرعي ما وطن حق قبطان هايران لكن تكتب حتى العجاء ويدي سنة يا رقاب معناها كربشنا مدعي محمد أبتي وحق هذا حق الشرعي اللي وطن ضد كهسته سومالي ماشي وكل وقت سنت هذا السيد الشرعي اللي سويدنا مرقت حق تكت هم في شرعيات ودورة تكتنا سيد لو دبايا سكوريتك بنانك الباب كرة جلسة الله بقولوا راسته بقولوا أنا قادنا مركز جودها كش الباب جودها كشنا الباب جودها مركز مصير كشنا شرعي حتى دوك دعسية إن شرعي مقدر الله ربنا وحالنا إن العكس بقولوا هالكرة لقى هذا وايا مركز حوجا كوربشن كسيد إسكاميشن وحسن داير أبو بكر sida aan u arko aragtidayda dawalgalka ka socdo South Africa kaasaan Soomaalidu meesha ay degan tahay waxaan waa dawlad markayna shaqadooda qabsan aad u fiican tahay dadka sharcigaas sharciyadooda inay qaataan waxa sidoo kale halkaasi iigu waramay xogayaha guud ee jaaliyadda Somali Community Board mudane Cabdirasaaq Macanjal oo ii sheegay inuu baaritaankan uu ahaa mid wanaagsan si nabadana ku soo dhamaaday in jirin qof Soomaali ah oo dhibaato ka soo gaartay marka laga reebo muwaadiniinta la qabto filaya saameynta ay ku yeelan karto baaritaankan maanta ay dawladdu ku sameysay xaafadda Soomaalidu ay degan tahay Mever oo ka tirsan magaalada Johannesburg inay noqon karto saameyn wanaagsan maxaa yeelay ganacsiyada sidoodii u socdaan wali wax la xiray ma jiraan dadkuna waxay muujinaysaa inaysan hadda wax khaladaad oo dambi galaysan jirin inkastoo ay jiraan dad sharci darro waddanka ku joogay ama sharciyadu ka dhacsanaayeen oo sharci darro loo xiray oo iyadu lafteeda muuqaal wanaagsan dadkana bari doonta inay ku dadaalaan inay wadanka ku dadaalaan sharcigooda inay waafaqaan dhinaca kale waxaan isleeyahay way wanaagsan tahay maxaa yeelay waxa dadku inta badan aaminsan yihiin ama fikir khaldan ay ka qabaan bulshada Soomaaliyeed ee degan Mever inay tahay meel drugska lagu gado dadku qoryaha iska haystaan dawladdu faragelin fara badan aanay ku sameeynin marka haddii inta dawladdu timid baaritaan fara badan lagu sameeyay waxyaabaha dadku fikrada khaldan ay ka aaminsanayeen laga waayeen waxay u badan tahay in ra'yiga dadku ay ka qabeen ee xumaa u bedelmi doono baaritaankan ayaa wuxuu daba socdaa hadalkii uu madaxweynaha dalkani Koonfur Afrika mudane Zulu sheegay in ciidamada kala duwan dalkani baari doonaan guud ahaan dalka si loo xaqiijiyo ammaanka dalka Koonfur Afrika oo maalmihii la soo dhaafay dhibaatooyin aad u weyn ay ka jireen ciidamada militariga ee dalkani Koonfur Afrika ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay dalkani ay ka socdeen boob baahsan oo loo geysanayo dadka ajaanibta ay ku nool dalkani Koonfur Afrika Idris Sheikh Ahmed Guure telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalada Johannesburg dalka Koonfur Afrika